السلام عليكم سودو ولاد إن شاء الله تعالى ما أنتم حين قاددونا عشر كيس دحاد وإن كبرنا للقدة جافا سكريبت عشر كان وحكوا الرئي ورسو قادن لبع عشر كواد وإن كسو برنا انترشن كجافا سكريبت sidoo kale to cashirkii labaad oo ku soo baranay syntax variables and data type maantay waxaanu isla baran doonaa isla dul istaagi doonaa operators waa maxay operators waxaan isla arki doonaa qeexitaanka operators kadib markaynu faahno waxaanu sii gudugeli doonaa hadduu aan leedimo cashir operator sida ujeediyay waa symbol ama waa calaamad u dhaxayso laba value waa calaamad aynu dhigi doono laba value dhexdeeda taasoo inoo ogolaa doonto different operations shaqooyin kala duwan aan qabano tusaale ahaan inaynu sameyn karno addition inaan wax isku dari karno subtraction inaan wax kala jari karno multiplication operator hada maqashid waa calaamado inoo ogolaanayno inaan sameyn karno operations marka operatorska waxaa kamid ah arithmetic operators yani inaan isku darno xisaabaad arithmetic operators markaan isticmaal doono waxaynu isticmaalaynaa addition subtraction multiplication and division sidoo kale waxaa jira operators ka assignment operator qiimo hore u jira markaynu ku shubeyno qiimo kaleeto qiimo ku shubid waxaan isticmaali doonaa equal waxaa jira operators ka sidoo kale comparison operators qiimo markaan la barbardhigayno qiimo kaleeto waxaan isticmaali doonaa greater less than or equal greater or equal not equal to dhammaan operators kan sida u shaqeeyaan waan isla arki doonaa muhiimadu waxay tahay inaan faano operators iyo noocyada leedahay waxaa kale oo jiro string operators qiimo string ah inaan la barbar dhigi karno qiimo kale string operators badanaa waxay la fargashaa assignment operator ama equal ama sidoo kale tan comparison wala falgeli kartaa waxaa jiro logical operators waa saddex waa an or not markii la joogo luqadan javascript an waxay u qormataa calaamadan sidoo kale or wuxuu qomataa laba calaamad notna wuxuu qorataa calaamadaas marka waxaan isla arki doonaa barnaamijkooda marka hore waxaanu soo furnay document HTML sidoo kale document ama file javascript cashirka hore waxaanu ku soo baranay javascript waxaanu ku dhex isticmaalay fileka HTML waxaanu furaynay script sidoo kale waxaan soo xiray script tag maanta waxaanu baran doonaa xeelad kale oo isticmaal javascript waxaanu ku dhex isticmaali doonaa external file aynu samaysanay waanu ku soo xirnay linkiga halaan isku xirnay script cr source kadib waxaanu dhahnay javascript oo folder name-ka intaas markaan sameynay waxaa si toos isu kaan xiran HTML sidoo kale javascript waxaanu bilaawi doonaa arithmetic operator waxaan soo dhahnay waxay noqotaa addition subtraction multiplication iyo sidoo kale division marka waxaan arki doonaa waxaanu qiimaha isku diri doonaa kala jari doonaa waxaanu samaysan doonaa marka horeeto variable si loo soo abuurto cashirka hore ayaan ku soo baranay waxaan dhihi doonaa let sidoo kale waxaan u baxsan doonaa x oo kale qiimaha waxaan ku shubi doonaa 5 variable kale waxaan abuuran doonaa y lagu magacaabo waxaan ku shubi doonaa 3 kadib labadan qiimo ayaan waxaan ku sameyn doonaa addition waxaan dhihi doonaa console.log inoo soo daabac maxaan soo daabacaynaa x sidoo kale lagu daray y waxaan rabnaa marka hadda qiimaha inuu noo soo baxo 8 waan rangaray doonaa save sidoo kale refresh soo jeedii baad waxaan soo daabacan 8 waxay ka timid addition-ka labadan variable isku daray subtraction dad aan minus ayaan meesha geli doonaa kadib sidoo kale waxaan rabnaa inuu noo soo baxo 2 sidoo kale waxaa sameyn kartaa waa isku dhufan kartaa kaliya waxaad u kala bedelaysaa waxay tahay operators calaamad 15 division waa sameyn kartaa point ee gal division ka samaysid intaas oo dhan awood u leedahay waxaan ku siinayso arithmetic operators qaybta labaad waxaanu arki doonaa kan aynu ku garaysan doonaa waxaanu arki doonaa assignment operator qaybta waxaan dhihi doonaa assignment operator waxaanu soo dhahnay waa equal qiimo ayaan waxaan ku shubi doonaa qiimo hadda qiimahan inta inuu yeelino soo kuubigaray variabladaas kuwaas koreetana comment naga saar assignment operator waxaan dhahnay inaan qiimo hore u jiray aynu ku shubi karno qiimo kaleeto hadda qiimahan x waxaa ku jiro 5 sidoo kale qiimahan y waxaa ku jiro 3 marka qiimahaas x waxaan ku shubi doonaa qiimahan y waxaan dhihi doonaa console.log kadib x inuu la mid yahay y balse waxaa muhiim inaan comments ka saarno console-kaas koreeto kadib waxaan rabnaa inaan noo soo baxdo 3 sababtoo ah waxaan dhahnay x waxaa ku jiro 5 waxaa ku shubtaa y waxaa ku jiro 3 5 taas marka waa la ignore gareegi doonaa kadib waxaa lagu shubi doonaa qiimahan 3 halkaas waxaan ugu doonaa assignment operator waxaan sii dhigi doonaa comparison isla kan inuu soo koobi garay kadib waxaan dhihi doonaa qaybtan
comparison operator waxaan soo dhaan waa isbarbardhig. waxaa la isku barbardhigi doonaa greater sidoo kaleeto less than ila dhahdid less than greater less than or equal greater or equal to iyo sidoo kaleeto not equal to. intaan operators ayaan isticmaali doonaa intaanu kubi garay sameesha inoo dhig si commentinadu sarnaato. kadib waxaynu sameyn doonaa waxaynu abuuran doonaa isla variables kan aynu soo kubi garaysan doonaa ama qiimo kale oo abuur karta variable kale. waxaan dhihi doonaa var oo kale taan ku abuur doonaa variable var. kadib waxaan dhihi doonaa num1 equal waxaan sii doonaa 20 sidoo kale to var num2 waxaan ku shubi doonaa 10. waxaynu sameyn doonaa markii inaynu wax isku barbar dhigno console marka raadid kadib .log waxaan soo daabacan doonaa console.log. inta ayaan isku barbar dhigi karnaa sidoo kale tana waxaa isku barbar dhigi kartaa inta soo daabacin ka hor variable gooni inay ku shubtid. haddii tan variable ku shubin waxaan dhihi doonaa number 1 oo kaleeto ma ka weyn yahay number 2 oo kaleeto. number 1 waxaan ugu jira 20 ma ka weyn number 2 oo 10 ah. waxaa la rabaa in soo baxdo true. soo jeedad waxaa soo baxay true. haddii aynu dhahno number 1 ma ka yar yahay number 2 waxaa rabaa inuu soo baxdo false. sababtoo ah inta waxaa ku jira 20 sidoo kale inta waxaa ku jira 10 marka waxaa weyn number 1 weyn number 1 ma ka yaro 2. sidoo kale waxaa sameyn kartaa inaad diidid not equal to not greater to waxaa soo dhan ay dhigi kartaa dhammaan operators ka isku tijaabi. hadda anaga waqtiga inagu dheeraado ma doonayna marka tusaale kaliya aynu ka bixi doonaa. waxaanu soo gudbi doonaa qaybtan xigto ah string operator shaqadeedu waxay tahay in la isku barbar dhigo xaraf iyo xaraf. waxaan dhihi doonaa string operator waxaynu samaysan doonaa variable name kan waxaanu ku shubi doonaa magac name. kadib waxaanu ku shubi doonaa yahay oo kaleeto variable kaleeto waxaanu samaysan doonaa lagu magacaabo name2 ama n ayaan soo gaabsan doonaa ama magac ayaan dhihi doonaa magaca variablekaas hore ayuu noogu jira. variable kaleeto waxaanu ku shubi doonaa aamin. marka waxaanu dhihi doonaa variable kan name ma la mid yahay variable kan magac. sideen isku barbar dhigi doonaa inaa console raadid .log. kadib waxaan dhihi doonaa name ma la mid yahay magac. waxaa la rabaa inuu soo saaro false. wuxuu soo celiyaa string operator iyo sidoo kaleeto comparison operators true or false soo celiyaan. hadda waxaa la dhahay false sababtoo ah name waxaa ku jira yaxye laba mid ahan markii la fiirinayo IC code-ka aamin. sababtoo ah waayidan waxay u taagan tahay xaraf gooni ah number gooni ah eedan waxay u taagan tahay number gooni ah marka isku mid maahan. balse dan soo qaadinta intan yaxye gelino waxaa la rabaa inuu dhaho true. soo jeedibu true sababtoo ah qiimaha inta ku jiro iyo qiimaha inta ku jiro isleeyahay. waxaan u gudbi doonaa logical operator waxay soo celidaa true or false. logical operators saddexda operation kala isticmaasho waxa waaye an or iyo sidoo kale not. javascript markii la joogo an looma yaqaano waxay isticmaal doontaa calaamadaas embrace lagu magacaabo. sidoo kale not waxay isticmaal doontaa calaamadaas halka not ay isticmaali doontid calaamadaas exclamations ama calaamad tajiib. tusaalaheeda ayaan arki doonaa intaan comment ayaan isku saari doonaa. waxaynu abuuran doonaa laba variables. hadda waxaan dhihi doonaa let variableskan waxaan u bixi doonaa oo kaleeto l ayaan u bixi doonaa. waxaan ku shubi doonaa qiimo ah 30 ayaan ku shubi doonaa. variable kaleeto waxaan u bixi doonaa m oo kaleeto waxaan ku shubi doonaa qiimo ah 25 oo kaleeto. marka waxaynu rabnaa inaan ku tijaabino logical operators. qaybta waxaan dhihi doonaa logical operators saddexdan ayaan ku tijaabi doonaa. marka waxaan dhihi doonaa console.log waxay noo soo daabacdaa qiimahan l ka ah. marka markaan isticmaalayno waxaanu dhihi l ma ka weyn yahay an kadib soo geli calaamada embrace. sidoo kale waxaa ogaataa an waxa ay true noqotaa labada condition markay noqdaan true halka or ay noqoto labada mid ka mid ah markay noqoto true ay noqotay waxay noqotaa true. ama sidoo kale cagsi an waxa ay false noqotaa mid ka mid ah hadduu noqdo false or waxa ay false noqotaa dhammaan marka wada false noqdaan balse waxay sax tahay mid ka mid markuu sax noqdo halka not ay diidma tahay cagsi tahay labadooda. hadda waxaan dhihi doonaa oo kaleeto l oo kaleeto ka yar yahay m kadib relation dhihi doonaa wuxuu dhahay false sababtoo ah
l waxaa dhahnay ma ka wen yahay m l maxaa ku jiro 30 ma ka wen yahay m yes waa ka wen yahay balse condition fashiliyey l waxaa ku jiro 30 m na waxaa ku jiro 25 marka waxaan dhahnay l way ka yar tahay m oo 25 ah marka false sababtaas noqoto haddii intaan dhahno ma ka wen yahay kaleeto true sababtoo ah labada waxay noqdeen labada condition true ay noqdeen marka waxaan filaynaa cashirkan dheereeyay waxaan cashirkan kaga boganay operators iyo noocyada u kala baxaan operatorska waxaan ku soo gabagabay doonaa intaan fadlan haddii aad nagu cusub tahay nagu soo biir sidoo kale asxaabta oo share garay channelka dadku ma sida daawashada muuqaalkan assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh